markaas baan ku shaqeynay صح xitaa hadda ka shaqeeya boqolkiiba labaatan arday kasoo aflaxay iskuulaadka kan idaacadda iyo kan caadiga dhigayba ku jiro marka dadka inta imaado caawo والله بين بروفيشنالز وبوليسي ماشي أميري كوكو يحسب مفجع أو ما دير رئيس كتابة يا بيا وين ما مسألة أي واحد هو اللي سدح قبل فينا دوريا أنت برنامج مسعودي وحاسو قاعد سدح فينا سدح ناس يا عاود ارتمايا قفتو في عن بيسا فاينا سنو كله همين دنبنا وحد ارتميسو بس سدح ويلا فينا أنت وريني ماذا يعني أسمينه سنو كله وريا أساسا كنا كمان فينا الآدي يوفيك فينا الآدي أيام سكونا من دونا أول مرة وحن بحن دونا فاينال واو والله إكيم أيام كاس كتير دونا بس عمل حكيمين هنا سدح في عن أنيقا كبير وفيصل دونا فكرة بحيث تسال أيام محمد اتحاد دونا لو بدن هل بدن كبير أيام استعمال دونا تاسو أبو دينو محمد سعيد متكلم يعني واو يوريني كامس ناو انت سو برنامج كنا بلاني waxaan ka cadsanaa hadii halkan aad cusubtahay inaad subscribe saarto si aan u gaaro 1.8 milyan subscribers aad iyo aad ayaa maasantiin ma tahay qof ku nool qaaradaha Ameerika iyo Yurub ma ku dhiban tahay faylalka dhaadheer ee xawaaladaha haddaba intaasoo dhan waxa ka xaqabtiraya application-ka Payc oo adeeg ku suurtagelinaya inaad lacag u dirto family-gaaga iyo asxaabtaada adigoo ku sugan gurigaaga goobtaada shaqada iyo waliba adigoo safar ah haddaba si aad u isticmaashid Payc kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka telefoonkaaga adigoo ku qoraysid Payc هي برنامج كان نص بلاون دونو وحوي دونا وريدينا ugu horeyso taas oo aad loo amaanay waliba codkeed aad ku tilmaanteen gabadh professional wariida almuhim wariidaas waa bad soo dhaw bad وعليكم السلام arka qaadni bad horay saxaafadda u soo baratay ماي ما برن من اسكتي ma jecleen inaa wariye noqdo ماي مجعلي حتى انا مجعلي ilaa hadda ma jecleen مجعلي waayahay laakiin waxaad u tartamaysaa saxaafinimo ها macnaha adoo u tartamaayo oo dadka siday sheegeen heybadda leh maxaa diiday inaad jeclaato والله ما جعلت حقوري ماذا فصل حتى هذه الصوت هذا ومدينة إنا غرينا قمتها وحيابا كلينا دورنها ومعقول maybe broadcasting ها لكن مرينا waayahay haye أنا محسنتها بلاد كرا waa bilaabi kartaa مدحوينها جمهورية فدرالك Soomaaliya دكتور حسن شيخ محمود oo maanta tagay xarunta wasaaradda gaashaandhigga ayaa kulamo ku saabsan xoojinta amniga iyo xareynta dalka kula qaatay qaybaha kala duwan ee dariska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo hoggaanka ciidanka difaaca dadweynaha madaxweynaha ayaa ka dhigaystay taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Gaad Ibrahim Sheekh Muhiidiin iyo saraakiisha hoggaamiya qaybaha kala duwan ee dariska ciidamada kuwaas oo guulaysta ka soo hooyay howlgallada dalka looga saarayay xilli howlgallo ballaaran ay ka socdaan meelo kala duwan oo ka mid ah gobolka madaxweynaha jamhuuriyadda Dr. Xasan ayaa sidoo kale la kulmay qaabilsanaha arrimaha ciidanka difaaca dadweynaha ee Macawisleyda Mudane Cali Jeete waxa uuna kala hadlay sidii loo mareyn lahaa howlgallada ciidamada gobolka Soomaaliyeed iyo ciidamada difaaca dadweynaha si loo dardargeliyo dagaalka dalka looga saarayo madaxweyne xasan sheekh oo ka duulaya xaqiijinta amniyadda ciidamada difaaca iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa uu gaadhiyay qaabilsanaha la dhalinta ujeedka dowladda federaalka oo ah in la yeesho hadal kaasoo ah in laga saaro arsenal waxaa gaadhiyay dagaalka waa wareey taasi u baad waxaa ila xitaa wariida kale aad u amaanay intaa badbaynayna siday inteen ay qaadato balse caawareed waxaan arkay professional wariid oo saddexda gabadha kumaaya hal keliya oo ka doonay almuhim wariid xitaa wicnaa waa ayaan inta soo
xiisayn jirta markaa yaratay aad hadda haddii idaacadda ama TV kuu qaatay inaa warbixin ugu tagiso maleeshiya ma aqbalaysaa Soomaaliya markaan caawa ku saabsan qofkii Soomaaliyeed oo ay si xoog ugu hadlayeen arrinta Soomaaliya iyo Itoobiya iyo maamulka wadacagta ugu socda gobolka Banaadir ayaa codkaa korqatay بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلكم وعنا ونكسن قيادة قيمة يقايا لو بالنهانتين بمير والبادلتان يسوق دمان دعوة نكسن مركا نكسو دوالي مركا في بيما qodobada warkeen ugu soo karoon caawa waxaa ka mid ah guddiga Soomaaliyeed oo ayagu markooda ka hadlay heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya kooxda kubadda cagta maamulka Hirshabelle kooxda kubadda cagta gobolka Banaadir oo kulan adag ku dhex maray Jimcihii Muqdisho waa maalin sabti ah taariikhda ku aasaysan tahay 12 bisha Janaayo sanadka 2024 markan kusoo dhawaada isagoo xambaarsan guddiga Soomaaliyeed ayaa codkooda ku diiday sida ay uga soo horjeedaan weerarka qaadan dowladda Itoobiya ku soo qaaday madaxbannaanida dhuleed ee waddanka Soomaaliya guddiga ayaa baaq u diray guddiga bixiyada nabadda ee Vietnam Express iyagoo ugu baaqaya ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ka xayuubiyay nabadda maadaama ay ka xadgudbay dhulkiisa ahayd sidoo kale guddiga ayaa qorsheynaya inay u diraan guddi gaar ah oo iyo codsiga marka saxiixa shacabka Soomaaliyeed dadkan arrintan ayaa ku soo beegsisay xilli shacabka Soomaaliyeed nabadda ay joogaan ay si xoog ugu dhiibiyeen arrinta ku aadan xadgudubka Itoobiya iyo Soomaaliland warkii aad kala socoteen TV-ga waa inaga intaa cid warkii waxay ku daalacaan karaan dadka internetka ku leh dawladda ayaa inta dadka xaakimada caalamka kala socon karaan laakiin barnaamijka intaas u sameynaya marka soo dhawow Fawzi Dimbal السلام عليكم حالته اوكي هاي صبرك صحافة غرب مصورية سكولات مجعلين فضيقة يقومي على حضوين حتى مجعلين Aku dali. hadalkaaga hore waxaa ku jiray in maaweelada carruurta waxyaabahaas aad qaban jirto waana meesha ugu horeysa ee lagu soo galo qaybta saxaafadda xaggee ka qaban jirta iskool idaacadda iskoolka ahay marka maamulka iskoolka wuxuu lahaa inuu SBC oo kale kala fursad ay qaban karaan inuu jiro idaacadaha soo marka iskoolkan ka qaadi jiray intuu ugu fiican marka bawla arka loo jiro raaqsan kale oo soo diyaarin jiray SBC dalja mas-uuliyadeeda saaxiibana way soo soo maamulka ku saabsan yahay iskoo saaran kale shirkada ay Djibouti kaasoo ay ka galeen qabashada waxaa kusoo qulqulay marka ku tirsan dalalka halkaas uu ka furmayo meertada kooxda madaxda shirkanaysa waxaa horeeyo arrimadooda oo ku aadan xaaladda gobolka shirkan ayaa waxaa dalku si weyn uga dambeeyaan saameynta isbeddelka cimilada ee ku yeelata gobolka dhaqaalaha iyo arrimaha waxaa kale oo lagu kordhin doonaa wixii ka soo baxay shirkii isbeddelka cimilada adduunka si uu G28 kaasoo
kusoo gabagaboobay shirmadaxeedka igaar ayaa kusoo aadaya xilli dalalka dhaca gobolada intooda badan ay suuqu wajahayaan saameynta ka dhalatay duufaanta El Niño iyo isbeddelka cimilada isbiirsaday iyadoo wadamada Soomaaliya, Kenya iyo Itoobiya ay dhigteen daadad roobkaas. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo hogaamiyaha ayaa gaaray dalka Jabuuti halkaasoo ay kala qaybgalayaan kulanka kow iyo afartanaad ee aan caadiga ahayn ee madaxda goboleedka isagoo markaas ka jeedi doona khudbaddaasa warkiina kala socday dalka goboleedyada inta badan looga eegay caawa intaa warka lamida iyo muuqaalka waxay ugu dhaqmi doonaan asalaamu calaykum.